بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaa halkan aan jecelahay inaan baaq uga soo jeediyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inta gudaha dalka gudihiisa joogta iyo inta dibaddiisaba ku nool. baaqaas oo aan doonayno in loogu gurmado dadkii Soomaaliyeed ee meel kastaba joogay ee abaarta ku habsatay ee xoolihii iyo dadkuba ay runtii ku jiraan marka maanta in ay dhintaan in markaa degdeg wax loola soo gaaro. waan ogsoonahay waktigan lagu jiro oo waktigii jiilaalka ah, roobkiina uu ilaa 3 bilood oo kale ay u harsan tahay. waxaa ugu horeyn sameynaynaa dhammaanteen waxay tahay inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan horta ilaahay barino, istikfaarka badino, si ilaahay inoogu soo dejiyo oo inoo soo dedejiyo roobkii inuu u daa dadka. taasun baa dadka wada gaari karta oo ummadda ay ku diirsan karta. marka labaad waxa weeyaan dalkan iyo dadkan innakaa leh inaynu isku tiirsanno oo aynu ka shaqeyno sidii aynu isugu gargaari lahayn oo keena jilicsan aynu ugu gargaari lahayn. se keliyan ku samayn karaynaana waxay tahay inaynu bilowno in qof kastoo inaga midi ku wax yar haya iyo kuwaan wax weyn haya labadaba aynu dhammaanteen ka shaqeyno sidii ummadda aynu ugu gargaari lahayn. guddigii qaran ee gargaarka degdega ee abaaraha oo maanta kulankiisa ugu horreysay aan fadhiisanay, waxa aanu doonaynaa inaan ilaahaydankii sida ugu dhaqsaha badan leh ay u howlgalaan oo sidii tabarucaas iyo wixii dowladdu ay qaban lahayd iyo dowlad goboleedyadu labadaba ay timaado oo markaa qorshaheedii aan maanta kow ka bilownay. kuna maxaa la yidhaahdaa aanu aada iyo aada ugu rajo weynahay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ay madhadhal yeeshaan oo ay timaado in markaa dadkii wax lala gaaro. sidoo kale waxa aanu abaabuleynaa in hay-adaha caalamiga laftooda ay qeybtoodii ka qaataan, iyadana waan ku daba jiraa. midda saddexaad waxa weeyaan inaanu rabno in hal qorshe uu yeesho oo gargaarku uu yeesho hal qorshe, inaanay noqon in 100 meelood laga wado, laakiin in meel keliya laga wado haddii aan leedno oo aan markaa hay-adaha caalamiga iyo xukuumadda federaalka iyo dowlad goboleedyadu intuba ay ku dhan yihiin guddigan qaran ay hawsha saa ku wada wadi doonaan haddii aan leedno. sidoo kale waxaan iyagana aan baaq u soo jeedinay oo aan doonaynaa inaan ku dabagalno ilaahaydankii waxa weeyaan waa dowladaha carbeed iyo dowladaha muslimka ah, iyagana oo aan rabno inay qeybtooda ka qaataan haddii alla idin. markaa waxaan ugu dambeyntii jeclahay inaan kusoo koobo hadalkeeda. dhammaanteen wayna wada sugaysaa. waxaan rabnaa inaanu ama ha noqoto shaksi, ama ha noqoto hay-ad, ama ha noqoto sharikad, intaba waxaan doonaynaa inaynu si mugle uga wada qeyb qaadano oo aynu walaalaheen iyo dadkeennii ku baaba'aya gobollada Soomaaliya oo dhan aan wax ugu qaban lahayn. ilaahaydankii ilaahay waa nagu gargaarayaa. markaynu isu gargaarno ayaa ilaahayna gargaarayaa. aan isu gargaarno, aan hawshaa wada qabsanno. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.